الرحمن الرحيم كلن وعنا وناكسن أصحابتان وجعلنا هيو كسو دواد مقال عصبان كهل دون اف سي برشلونة وهرين ديات كعصبتا جنال كباركا 252 فضلان سبسكرايب سار او جنباليل كافرو سي مقالada aan soo dhignay ku soo gaaraan mahadsanidin anigu waxaan Ismaaciil Saxafi waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkii oo dhameystiran kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guul ka gaartay naadiga ay isku magaalada yihiin Espanyol oo ay Camp Nou ku martigelisay waxa ayna kaga adkaatay gool Iber kulan qaybka ah horyaalka dalka Spain qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala maray barbardhac Iber oo ay isku dhaaf waayeen labada kooxood Barcelona iyo Espanyol qaybtii labaad ee dheesha markii dib la isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan ee gool loo filan karay daqiiqadii 50aad ee ciyaarta waxaa Jose María la siiyay laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee da'da yar Ansu Fati daqiiqadii 56aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana gool Iber ka dhigay Luis Suarez Diaz kadib markii uu goolkan ka caawiyay Lionel Messi Luis Suarez ayaa dhaliyay goolkiisii 196aad wuxuuna noqday xidiga saddexaad ee ugu goolasha badan kooxda Barcelona taariikhda Espanyol ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta ku dhawaatay inay barbaraha keento laakiin waxa ka diiday goolhaye Marc-Andre ter Stegen shaxdii ay ku soo gashay ciyaartii xalay kooxda Barcelona goolka waxa uu hayay ninka lagu magacaabo Marc ter Stegen difaacida waxay ahaayeen Nelson Semedo Gerard Piqué Clement Lenglet Jordi Alba halka qadka dhexe ay maamulayeen Sergio Roberto Sergio Busquets Ivan Rakitic weerarkana waxa faraha looga qaaday Lionel Messi Luis Suarez iyo ninka lagu magacaabo Antonio Griezmann ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-0 ay kaga adkaatay Barcelona kooxda Espanyol oo martii ugu ahayd garoonka caanka ah ee Nou Camp Stadium guud ahaan muuqaalkii koobnaa waa inta tan iyo barnaamij nooc ah oo kale inta kulmi doono waa saaxiibkiin Ismaaciil Saxafi oo idin leh maalin wanaagsan